daawasho wacan oo wanaagsan maalin walba video marka aragtaan oo aan isku soo noqono alxamdulillah ina dhahna Soomaa ilaahayga caafimaadkana siiye ilaahayga yani fikradan iyo no qadara ina iimaanka in la soo horfariisto aan u shukrinayna anaka dhan alxamdulillah hadii aad fiirsato alxamdulillah ana caafimaad qabo hadii aad maxay ahayto aad iga soo qorto commenting adoo caafimaad qaban ana waxaan leeyahay ma sha Allah alxamdulillah ilaahay wada ma hadale waayo dadkan wanaagsan ba ilaahay isoo qasbay ka waran bal alxamdulillah okay subscribe-ka maxaad u daciifiseen bariyahan waa daciifiseen maxaa dhacay waayo aniguba inagama daalo oo dhiirigelintiina u soo dharqaatay aan u soo fariistay dana kastoon leeyahay adinka inaga hormariyaa meel kasta oon danaynayo adinka ayaan iraada focuska aan saaraa oo dhahaa maya waxaa ku sugaya dad wanaagsan waxaa ku sugaya 10,000 oo qof dad ka badan oo duco kula garab taagan ood ku qabowday waana aaminsanahay waayo haddii ducadu aysan wax tareen waan waalan lahaa dharkan dhigan lahaa subxaanallah iska hadal ayaa igu dhici lahaa subxaanallah waan is ilaabi lahaa subxaanallah iimaanka iga bixi lahaa subxaanallah meel aan u qalmin anoo hooya ayaan istaagi lahaa subxaanallah meelahaasaan ka dhex qaylin lahaa subxaanallah allahu akbar ilaah waa igu keeni marka ogow ducadaadii waxay ii noqotay irid khayr qabto oon ku qaboobo oo aan isla markaas dareemayo okay maxaan dareemayaa video ayaa jirta aan ii soo duubay jawaabtiisii soo martiin inaan siiyo su'aal wixii aad ka qabteen commentiga waa arkay qaarkood okay wiilkaygu ma sha Allah Salmaan waxaan la hadalnay naagtii haysatay oo u ahayd looyarada yani waxaan ku dhahnay walaalay hee waan walwalsanahay waxaan nahay waalidkii ilmaha dhalay markii igu wardambeysana oo himbaan ku kala tagnay asaga oo isagoo qaraacansan oo kule waalidkay iige waali idile guriyaad iga soo wadeen guri kalaad i keenteen dhibaato leen ku jira war waalidkay cidii dhaanta male ayaan ogaa hortayduna ka dhahay dhagahaadna ku maqlaysay dhibaato haysatay maxaad ka caawisay war xaqa hadii afka laga dado ilaahay dulqaad badana alxamdulillah shukr ila anagoo qaarkeen muslim ah waxaan doona falkina iska daa qof ilaahay ka furtay ma fahanti ilaahay ma aqaan jiri marka waxaan ku xaqu de afka markii laga xiro mar ayuu butaacaya waan walwalsanahay kiiskaasaan sugaayay oo aan ka war sugaayay waxay hadalkoo dhan ka dhigtaba cunugaada hee waa cunug yani dhib badan haye iskoolku dagaalku galay naa cunugayga markuu dagaalka galay oo iskoolku ku galay adigu miyaad joogtay riisadka cunugayga loo bursanayo miyaad og tahay ma ogo okay waayahay cunuga caafimaadkiisa soo yahay adigu maadan i tuseen miyaa cunuga mar kale aniga insha Allah mar kula soo wadaagi doono tusmo wax la dhahay ma jirto caafimaad Allah siiyo meel kastay joogan ayaa ka dhan Allah ku xafido asagana Allah ii dhooro waa ka walwalsanaa been ma ku sheegayo cunugaro hadda 14 sano dhameeynayo oo 15 madaxa la galaayo oo hadda 14 jira oo 15 ku sii socdo waa dareemi kartaa ilmuhu markay qaangaar yihiin dhibaato badan ayay la kulmaan ilaahay waxaan ka baryaa asaga iyo awlaada oo hooyooyinka wada dhaleen in uu maskaxdana wax ka gaarin balaayana aysan baran ilaahay baan u baryaa waayo nin raga gumaysi cadaab ayuu ka muteystay ciil cadaab ayuu ka doorbiday waa nin raga ma sha Allah marka waxayba tiriba iskuulku ku dagaalamay okay iskuulka miyuu ku dagaalamay ha oo marka hadda waxaaba ilaadahaba hawshi aan walwalka ka qabo waxaaba iiga daranba yani cunugayga waxay ka dhigaysaaba cunug hadii uu dhinto iyo hadii dhibaato loo geystay waxba yoo ooyahay wallahi suma wallahi waana cunuga kaliya Allahu akbar wiilkayga weyn oo curadka waa wiilka kaliya aan wiilasha marka banaanka u dajiyo aan dhahoyo banooniga la dheel ilmaha kale iiga ilaali hooyo saan suubi aan xatii sikalka marka u dhiibo baaski aan dhahoyo sikalka ilmaha qaado ilmaha kale inay ku dhuftaan iyo ilmaha ka yar walaalihiisa saddexda kala caawin jira maantana waxay ilaadahay
cunug nooc kale ah ayaa lagu sheegaya way anigu ma aaminsani markuu aan la hadlayo waxaan aaminsanahay markasta cunugayga waayo cunugaada waad ogtahay inuu ku fiican yahay cunugaada ilmahaada waa kala taqaanaa hooyo hadaa tahay kan baariga iyo kan hadalka qawgi leh iyo kan oo bulshada la dhaqmi karo waa taqaanaa marka Salmaan ma ku ogi waali iyo fudayd laaksa waan weydiiyay aniga oo hadda ka hor waxaan ku dhahay hooyo iskoolkii labaad way hadda yaa iskoolkii horena ilmo kala dili gaarin oo lagala soo orday iskoolkii labaad way hooyo hee tuulo waxa la geeyo u dhahay cadaanka u badan yahay adoonyo ayaa la dhahayo u dhahay neegar ala dhahaw dha jireer marka maadaama waa sax cunigi madow yahay oo meeshina ay filooyin yar oo cadaan ay tahay tuulo ka sii dhimatay ay tahay maxaa dareemi lahayd in la midibtikoora wuu arkay cunugana halkaan uu ku aqliyeystay asagoo yar halkaan la keenay ilmaha ku koray waay mideeda labaad muuse arki jirin in la cunsuriyeeyo in madowgiisa wax laga sheego laakiin nasiib wanaag waxaa la darsay arrin ilaahay noo qoraana ka dhan okay marka cunugu waa la hadlaa waa la fiirina baa leeyahay aniga asagana sidoo kale respect dhan lama siinayo oo markasta wuxuu ku dhahayaa hooyoy kuwaan ma imaqlaayaan ajaa'ib war xaqaan la moosmoosayo ilaahow maaligow maalin dilaaci muslimiinto dhan ka farxi muslim iyo gaalbo yaa xaqa in laga galo ma qurxoonee yaa rabbil caalamiin xaqa noo soo fatah ilaahow itixaamkaada noo fududay noona dhib yaray wallaahi way daaleen ilmaha yar aad bay u daaleen subxaan allah alxamdulilah wax walbo waa inaan ilaahay ugu xamdinaa haddaana hooyo marka ogow dan cunugaada lagama leh noloshaada dan lagama leh adiga ayaa ka fikiraya cunugayga qaangaar waaye cunugayga hadduu soo baxaya ama dhib maleega ama asaga lagu maleega ama asaga maleega ama darooga iga bartaa ama noocaas noqdaa hadduu ila joogla walwal dhanba aduu ku haya taleefonka ma lagaa qabanayo wallaahi oo bilaa taleefonka ma lagaa qabanayo fulmaktaha iyo labada fulmakta iyo looyarada iyo war maa taleefonka qabatiin ayaga ka qabanaya ha shaqan ku jirnaa hadda degdegaana hadda ka dhacnay baba markii warka lagu adkeen ilmaha maxkamadaana siisa ajaa'ib war arrintan dulqaaday rabtaa war samiray rabtaa Soomaaliyaan ogeynay anigu bilaash uma soo hadlay adaan ku danayna aniga isku daweynaa warka calooshayda kan ku jiro oo hadalka ah oo i ubrinaya ee anan cidna u sheegan karin ee anan xatii qof bini aadan la wadaagi karin waxa igu qasbay inaan TV ka dhaxadlo anoo hooyo ah in maskaxdaydu degto ilmahayguna ay ila socdaan ay arkaan ilaahay baa la doonto way arkaan alxamdulillah oo waaba la yiri ilmaha halkaas laga arko ilmahaada waa ka xumaadeen ma rabin waxaas iyo wax u dhow cunug aniga isfaham weyn maba dhalinba alxamdulillah ilaahayna maba iga soo gooyo mid caasi ilaahay baa mahadale anigu ba caasimiye ilaahayna wax caasi igama soo gooyo marka waxaan in leeyahay ogow qof kasta oo hooyo ah oo cunug ka maqan yahay walwal ayada bas ku taagan yahay ayaga dan iyo hela kaamale wax ku danaynay male aaba tahay taleefonku wuu iska dirdiraa odayga markii la rabaa laga qabtaa markii laga qabtana warsan lama dhaho hadda maaha saan maaha hee maxaa dhacay inta nuu anoo taal naa erayga saaba anigu iga soo boodo inta nuu hadda maaha baa lagu leeyahay waa meeqa sano ilaa fiina abada ma sheegi karno war arag si in qalbiga lagaaga dilay war ilmaha yar weyni ilaabayaane meeqa sano war sanad hadday ku socotaay maxaa tale ma sheegi karo ma garan karayo ma awoodo ilaahoodaa wax awoodid ilaahow carabkeeda iyo qalbigeeda adiga daalacanay annagana adigaana daalacanay ee rabbiyow xaqeena noo kala saar
qof kasta oo muslim iyo gaal ilaahu xaqiisa u birbiri ilaahu xaqiisa u soo bixi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.